back to back selection halkan waa VIP cajiib ah toos nooga daawanaysaan asxaabta waxaan leenahay caawo iyo shacabka isliye mikrofoonka laba gabdhood oo aad u qurux badan karbayga taagan aan sidii kara gabdhaha isliye ugu quruxda badnaa waa tahay barnaamijkeena wuxuu ku saabsan yahay oo aad la socotaan ayaanta dambe fanaanadii reer Nairobi gabadhii loogu jeclaa haddana faaralka noqotay ee adduunyada loogu jecel yahay waa walaashay Nimca Habi ayaa aroos gashay arooskeeda dad badan falcelin ka sameeyeen balse maanta shacabkeeda iyo magaaladeeda Nairobi aan waxa weydiin doonaa sida ay u arkaan xaaladda arooskeeda iyo magaca ay sameysay waa tahay waxa ay la taagan laba gabdhood magacaaga Bushra Ahmed adigana magacaaga Sofia Lirada waa tahay waxaan weydiinayaa ugu horreyn see u aragtaan arooska Nimca Habi Okay for me waxa dhiilaha ku faraxsanahay arooskeeda dadka wax ka sheegayana waa dad horumarkeeda ka xun qofka markuu sagaari karin wadada martay buu xumaantaada ka hadlaaya marka waxa leedahay magaceeda oo kor tagay aagu exactly maadaama aan noqotay dadka ka hadlaaya dad aan gaari karin waa nolosheeda waxaan dhiilaha hore u socodbaayo guurkaadana guur khayr qabaalaha kaaga dhigo qof walba choice-kiisu ku socda ama happy choice-kaada ku faraxsanahay aniga dadka horumarkeeda jecel ku jira ما شاء الله dadka horumarkeeda jecel adiganas anigana ku faraxsanahay laakiin midaa dhihi lahaa nafaqaysaa dhihi lahaa inta aad nafaqaysatid in laga xoogi doono waa ogahay laakiin in nafaqaysaa dhihi lahaa isaga inay nafaqaysato oo macnaha xoogaa yartay xoogaa kasta wax kale ka dhigta haddii markaas lagu qabsado ka war markaas waa arki doonaa ninkay cayni jireen wuxuu yahay hatustaa taagan ما شاء الله نفقة لك ديما واتاي سو أركتان مقع أي سميسة أي سومالي وسجيدة أيضا لا أقول إن أدونك فارل كنقط قف عان أي كنقطه سو أركتان ما شاء الله والله دعاء ذلك سو بحلا أركع كدبنا أروس إيش شو ما شاء الله وحس كنت ترسمه واحد مداس بس لا أسكها جاجسة ما شاء الله هذه سو أركتا مقع أي سميسة يا هرك أي سميسة والله I'm happy for it هو فرح سنة هذا هو فرح سنة although أنا قاعدة بوس كده كتير لها سلام مركز أنا وصاص عن ونقضي هوريكم جورسين هورت بينكم مشيك غير حيسينا سمين لذبح ها أنا تيدا نلشي راح يسن لها عبار لكني قفل بديفرنت وأدون كان موت قفل بجوي سلية هاي صح سو هذا جور يذكر ده إلها هو بركة لدي لها كله كم حمل لكني وأقوم ما سنتني مع مدام مقع سومالي ذكروا جيسي صح مدام هيستا هذا فايرال كون قطع يكون كلا كعدي I'm happy for you سيزا كودي لها روسعة أديك هس كذا ومحكو حسوسته محكو حسوسته أريد قرما مخش سنة كهرت مرة والله سنة كل شيء كرا محسوسن كرتا محكو حسوسته كرتا سيف عن نور شيء يا أخي قصلين بس كقصلين حسوسته أي محكو مذا أنا أحبك يا حبيبي إنك بين أبي مسات ساسلا ما شاء الله ما شاء الله أي أديك محل محكو لنا نمعو هس كذا محكو حسوسته قرما سمخش مركو ورس والله مركي صباح ذا مقلب بد attention مسين يا هذا الريال قاركود بس كهله هذا ملك اسمه كاغا صور بحدا مسه يا هو يجا صور بحدا لكن هور ما دام أو مقلي ستيل سمعيته يعني تيجي كوتا but I'm happy that أجنبي أو هسه هذا استعماله that will make us proud as the Somalis they will make us go forward ما شاء الله هذا كاغا مدعلنا بحيلة كاغا مركلة لابا قف هذا مركا مقعة ولالكي أحمد فارح شو هو ولالكي ولا شيء عندنا مقعة رحمة حاجة أحمد فارح أبي عمر ما شاء الله اسكو مقعة ودتي ما شاء الله أبي ما شاء الله برش الله مذا ماشى اسكو برتين اسكو إنايا نقطين ما شاء الله يا واتهاي waxaan ka hadlaynaa barnaamijkeena oo si toos ah aan halkan ka sheegaynaa waxay tahay waxa jirta fanaanad la yiraahdo Nimca Habi oo reer Nairobi ahayd oo waliba magaaladan ka soo dhaxbaxday islee ما شاء الله تاجر وين هو number 1 ما شاء الله number 1 أنا بكير number 1 أو تاعي ما شاء الله ما شاء الله هذا وين هذا أنا ما شاء الله سيدو خلا تاجر وين بواهي وتاجر جبر ولا شيء صومالية دواي وفنانة ده مركا وأكلة كعد بريان وأخوينا قرب استاجنا ما دام أكلة كعد عالم كمقعد وجارة أجونك ما تاه صومالي ده مقع وين سوجيدي سأكتهين أو مقعد وين سوجيدي مركا سيدا أو أركتان مقع صومالي ده سوجيدي ما شاء الله عاد وين وانكو فرح سنة ولا شيء هرمركي قارتي ليه وزي سيادي عليها إلهي وسيادي فرح سنة عاد وين واتهاي waxaan ku weydiinaa waxay tahay nimco guud ahaan magacaas
ay Soomaalidu u soo jiiday marka laga tago waxaa jira weekend inay aroostaan soo dhaafnay kadib markay aroostay dad badan ayaa si uga falceliya qaar waa u hambaliyeen qaar waa waxyaalo kale sheegeen adi aragtidaad ani qaybta wax hambaliyaysa ku jira waxaan la wiili caano gabar caano dadka waxay ka sheegayaan maxaa kale waxay dadka sheegayaan way ku qaldiin aan leeyahay because wax ka sheegayaan kuwa wax ka sheegay way ku qaldiin because gabar fanaanadu way guursatay dadkana way guursadaan mideeda kale ayada war cilin ka bixiso waxay dhahday guurkeyga iyo horumarkeyga guurkeyga horeeyay dhahday markan waa wax wanaagsan oo rasuulkan kaleey salaam hor u sheegabo marka waxa leeyahay horumar wacan walaashii horumar wacan ha ma sha Allah Axmed adigina isla su'aashaas ku taal aniga waa ku faraxsanahay inay guursato gabadhu sideedaba guurba u joogtaa maadaama shalay aan taageersanin oo walaashaneed oo gabar Soomaaliyeed oo adduunka magac ka yeelatay saa u garab istaagnayn waa inaan haddana guurka iyo mataqaanaa khayrka iyo mataqaanaa inay gabar sharaf lahaato oo reer yeelato aan ku taageerno oo aan u muujino farxadda la qaybsano waa taageersanaan mar walba guurka iyo mataqaanaa dhanka fanka labadaba waa tahay aragtida ah ayadoo asuran inay haddana fankeeda soo gudbiso maxaa ka leedahay aad weyn waan ku faraxsanahay ma sha Allah horumarkeeda kor xataa waan jeclay fanaanadeed waan taageeri jiray ilaa haddana waan taageersanahay saayid aa u jeceshay saayid aad weyn waa maqlaysaa nimca hadda daawanayso salaamaya nimca salaamaysa insha Allah toddoba ku jirtaa oo maleynaa ku daawan doontaa ma sha Allah wiili caana gabar caana leeyahay walaashay macaan hambaliya leedahay ha hambaliya leeyahay walaashay see u aragtaa wiil Soomaaliyeed inay guursato ayadoo magacaas leh wallahi ma sha Allah waa farxad aan la qiyaasi karin maadaama ay ayadana ay tahay gabar Soomaaliyeed oo mataqaanaa haddana wiil dhalinyaro oo Soomaaliyeed ay guursatay waa wax lagu farxo adigana ما شاء الله هذا وين والله وكو فرحسناhay horumar waacna leh walaashay wiili caana gabar caano aadan kaaga mahad celinaya walaasheeda insha Allah mudo walaalkeeda adigana sidoo kale brada waa salaamayaan Mahabi iyo qoyskeeda oo hambalyeynaya mar walbana waa magacaaga Maxamed Cabdi inta waa Renaudsen waata maxaa Cabdi waxa ku weydiinaya waxaan ka hadlaynaa su'aal dadku waxa weydiinayna fanaanad Soomaaliyeed oo magac sameysay oo la yiraahdo Nimca Habi oo reer Nairobi ahayd hees qaad adduunka dhan ay qabsatay marka waxaan ku weydiinayaa gabadha Soomaaliyeed see u aragtaa horumarkaas ay sameysay waa ugu mahadcelinaya marka hore waa ugu mahadcelinaya heesta wanaagsan oo maarta way qaadii Soomaalida maarta ku farxday waa ugu mahadcelinaya gabadha soo mahadcelinaysa waa tahay mid labaadna guurka ay guursatay waa shay guurka waa shay waajib sax idin waa ugu mahadcelinaya maxay qofka duu qaan gaara si aan guurka isku celin karo ma jirta dada waxay qabaan aragti ah gabadha maadaama ay guursatay maxay guurka ugu degdegtay maxay wiil Soomaaliyeed u guursatay koo waxay qabaan magac weyn ay yeelatay maxay Soomaalinimada uga tagi weysay hadda magac guurka weyn oo soo jiileed ma jirta صح ما فهميسا waxaan kale waa iska sheeka way صح ما هي guurku ruuxa muslimka ah wax aan guur ahayn oo ku waajiba oo wanaagsan oo qaangaar yahay haday isma dhaalan kara ma fahmeysa maadaama nagta fanaanad ay tahay wadan kasta ay tagaysa ma fahmeysa iyada nafteedu guurku oo wadan in ciyaal lasho nafta la samaysayna ruux biri waa dhiman kara صح marka muhiimka waxa waaya adoo guursado oo hatta hal cunug ba laba ka taga hal cunug laba hada ka tagta magacaada ma haraay ma fahmaysaa laakiin konton sano fanaanad ah oo meel kasta marxaba ka tagin magacaada oo dhumay bir hada gaariyo marka guurkaadu muhiim u yahay ayada marka hadda toddoba ku jirtaa maxaa dhigay insha Allah wallahi waa madana farxadda labada farxad mid hadda ay guursatay aan aad ugu sii mahad celinaya boqolkiiba 9 mid u duceyneed waa u duceynaha bas maqlaysa Allah isu barakeey wiil caana gabar caana صح idin ninkeeda ku isku war Allah ka dhiga ninkani waa Maxamed Cabdi oo from Nobisana aadan walaalkayga magacaaga waa mahsanta Jibril reer Nairobi ata yes okay Jibril waxaan ka hadlaynaa oo dadka weydiinayna waxay tahay su'aal ah nimco Soomaalida nimca Habi gabar la yiraahdo fanaanada oo reer Nairobi ahayd oo Nairobi hometown yes waan la socday marka gabadhaasi magac weyn ay sameysay faaro lay noqotay hal heesay sameysay kaliya waxay noqotay inay adduunyada dhan gasho kadibna waxay sameysay isla weekend gudihiisa aroos ay gashay arooskii dad badan ayaa si uga falceliyay qaar uu hambaliyay qaar ba si uga falceliyay bal adi aragtidaada shakhsiyan gabadhaas iyo magaca Soomaalida oo soo jeed ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله فرحسنا ولا شيء مع هبي وحاكم انت تاجره نمع هبي ما شاء الله تاجره كم انت ما دام هور مركا قارتني ما شاء الله
ilaaha u zaahidiyey farxaddeeda waa maasha allah arooskeeda waan hambalyeynaya waa tahay waxaan ku weydiinaya waxay tahay arooskeeda see u aragtaa arooskeeda maasha allah horta arooskeeda lama socday sax laakiin maasha allah waa maadaama caawa aan maqlay ilaaha u siyaadiyo yani aroos farxad ilaaha ka dhigo maasha allah waa adi marka ma Soomaalida waxa ku jirta arooskeeda hambalya dhahayo Allah u siyaadiyo aroos qurux badan oo ahaa isku waara bis waxa ku jirta kuwa dhahay looma baahnayna xilligan inay aroos horta sideeda qofka walaalka waxa fiican oo wax walba tilaawo walba oo qaado waa ina la dhiirigeliyaa soo ma fahmin anigana maasha allah waxaan ku jira dadka hadda ay dhiirigelinaya yani oo ay dhiirigelina hore u sii socodhahay macnaha ku jirta maasha allah wata heeskeeda aad maqasho si naftan arkooda gorma kugu horeysay horta aniga ma yihi dadkan heesaha dhageysto sax laakiin yani waa muuqaal ahaan waan la socdaa maadaama heesta ee soo qaaday oo yani dadka falcelin sameeyay heestii dhawal ee noqotay laakiin ani ma yihi dadkan heesaha dhageysto heesta waan maqlay laakiin ma yihi yani lama socdo qof heesaha dhageysto kale ma yihi laakiin waa maasha allah alxamdulillah aadan kaaga mahadcelina jibriil walaalkayga magaca cabdi maxamed nuur عبدي محمد انت وين؟ ابو فروم غاريسا ها واريدان بريدو عليها ما شاء الله غاريسا بولا ذاك شا بولا شيخ انت بولا شيخ واتها فنانة رين نيروبي اهد او نيروبي دا عان كاهد magaceedana la yiraahdo nimca habi ayaa macnaa waxa ay sameysay magac weyn Soomaalidu soo jiiday ma sha Allah sax wiigan soo dhafnana way aroostay aroosay ku jirtaa aragtidaada marka nimca habi iyo Soomaalidu magaceeda soo jiiday والله هرت شرف وين إنه تهي قبلها ما أردي رنا عندي هاي استيقظ وبره برشة زايد وقشة صح قال مسلم وايد عوضان وين كوحس وين كوديلان مركا وما أرد يقول وين أنو سوي توه هرت تانكر أنا ودن كان الله أنا بتحكي آمين أولا تان لواد وحاول قبلها وما أردي رنا عندي أدي هذا متغراني هان لكن جورك ما أردي نيوي كود دكتة عندي لا هذه أركتي وحاقبتها إنه كود دكتة هاي كود دكتة إنه كفيرست أو ما أردي وحال الربع أو ما أردي هس كلنا يصوب بدي صو أو ما أردي براه بشيء سفيع وصو كشو مربي كبح هذا صح مركو عارنا أنا هذا ما أردي دبي وصل على تو أو ماشي قبل على عدنا صح مرك جور كنا وفي عنا ما شاء الله مهمو مرك تاسنا جور كنا ما شاء الله تاسنا اللي بكم قبلنا لكن هاي ما شاء الله وان دقيس هاي زي وين ما لنا كوي عشتاو ما وكدر جوا ما شاء الله آذان كجماد علنا صح وحقلته كويدينا وحتى إن هاس كذا وحنا كتقنا والله صاحبه أنا هرت ما ردي دتك حس وقت جستم بس لكن دتك ما ردي سادو اللي ما هي لكن أنت والله صاحبه أقصونه أنا كنت علىها حس بزاد وجعلها مركوا تاسو منكو عيش الصومالي اللي بالله جدك والله صح ما محاتر على الله صح نعم ما يجا وحنا كتقنا ممكن نيو أنا وابر حوينا هاي لسانا هاي فروم بيدو ما شاء الله بيدو هرت أنت كسلام هاي دمانتو غير لفت جرام سلام هاي ما يبغى ما شاء الله أرد ما رأيس يا ما شاء الله ما أرد نيو سر سومالي وسلامة سومالي وسومالي we are united مركا ما شاء الله ولا كمان سلامة ولا شيء نكيب going on deal إن شاء الله هورا وسعد الله because وجبر في عن وجبر أخلاق له رنانت وجبر في عن نين دالنيرا سلمركاسنا كم إذا دالنيرا نيروبي مقعد أنا وحلي رضا عبد الله إبراهيم كسودو كانال كان VIP عجيب سؤال شامانت دتك ويديننا واحد شايف فنان رير نيروبي أهد أو سلمركاس لورنجرين مع هابي وهذا كنا المجال عاصمة مقدشة أيها هاس قاعدة سنة كلا بدو كنت تضبطي أيها وحنا نقد فارل الدون كنا يوكا قدمي مقع الصومالي لنا يسوجيته هاتن لتاجي هدنا ويجان كديسة أراس كذي أيها داعي أراس كذي أيها ضد بدن سيك كلا أوقف العليان مركا هذا أركتي هذا هرتا هذا وما سنتين channel كمان سود وينه يا صح أنا ولا أعرف هذا هرتا نما هابي هرتا أنا ما كسجرين دوغا ديغاني كسنا مركا ملا والله مردوا هرتا مغلى مقعد ذبا صح dadka badana YouTube-ka heesaha dhageystamihi صح laakiin waxaan aragnaa maalmahan meel walba mooto walba inay heesteeda ka shidan tahay صح magaalada markii la dhaxsoodaha ani waxaan dhihi lahaa horta gabar islaamad oo Soomaaliyeed waay
waxaas uma fiicno si fiican gabadha muslimka dadka hadda u yeerayna ma ahan dad muslimiin ah waa gaalo sax marka diinteeda ha adkaysato maasha Allah hadday guursatay mustaqbalkeeda waxaan leeyahay ilaah u barakeeyo ninkeeda Allah u barakeeyo waa tahay ninkeeda ayaa dad badan wax ka sheegayaan kuwaas see u aragtaa horta Soomaaliyeed horta way jirtaa midaas sababtoo haddii mar la yiraahday oo Nimco Habi waa la qaadaya marka dadka badanaa waxay leeyihiin aan ahaan horta waxay la tahay inay ninkaas ayadana inay ku sii darsato oo leenka in lagu sii qaado ay rabto sax marka ninkeeda hadda waa mustaqbalkeeda ninkeeda waay si fiican xalaal u yahay way wadan kartaa si fiican waan ku faraxsanahay taas waa ku faraxsanahay wiil Soomaaliyeed guursato said dadka ka falcelinaya marka maxaa dhiileed oo waana horta gabarta waa walaashiina hadday guursatay waxaa loo baahan yahay inaad u hambaliyeysaan sax marka looma baahana in oo si qaldan u aragtaan waayo waxaa ka xumaan lahayd in ayada oo aan nin haysanin inay baxdo oo gaalada ay dhex gasho taasa ka daran marka waxaan leeyahay hambalyo taagan mid ka mid ah dhalinyarada xaafadda Fili magacaygu waa Cali Xasan Abnuur waxaan ku magac dheeraa Yiriso soo dhawow waa dhuuha walaal su'aala dadka la weydiinay waxaa jirta fanaanad Soomaaliyeed oo heeseeda faaral noqdeen oo magac yeesheen waxaa la yiraahdaa Nimco Habi la yiraahdaa Nimco Habi si fiican heeseeda waa kacsiin maalmahan waa dhageystaa oo waa ku qayilnaa wareerasha macaanana shahmacaanati waa ku qayshaa waa ku qayilnaa heesaheeda si fiican ugu qayshaa waanta soo aragtaa horumarkaasi magacaasi Soomaalidu soo jiid wallahi aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waa fanaanad maalmahan kacsan oo reer Muqdisho ah aad iyo aad waa taageersanahay waxaan sii taageersanahay Suldaan Seeraar Guhaad oo beladihii si fiican oo hadda noo qaaday number 1 xidiga Soomaali u qaaday heesaha dhinaca ragga si fiican adaa siisa biladaas laakiin bilada ani kaliya ma siin Soomaali weyn badankood waa siiyay Soomaali oo dhan siisay maya inta taageertaa siisay inta ka soo horjeedinaya waa ayaga u taala hol noo taala ma waatahay Nimco waxay aroostay wiigaan soo dhaafnay arooskeeda dad badan ka falceliyeen waxayna aroostay wiil Soomaaliyeed adaa aragtidaad maxay tahay wiil Soomaaliyeed hadday aroostay waxa qaarada kale hadaysan guursan oo wiil Soomaaliyeed guursato waa walaalkeed waa guursan kariya waa ku faraxsanahay hambalyo ma halkan ka leedahay hambalyo waxaan dirayaa waxaan habada u marinayaa farxad iyo reen inay ku noolaadaan sidoo kale waa aad baan ugu faraxsanahay okay midaan ku weydiinaa shaamacaan see u darantay reer Shamcaan datin reesh oo guurkeeda heesaskeeda wallaahi waa dadka qaar waa taageersan yihiin qaarna waa ka soo horjeedaan heesaha mirahan ka dhageysanaa maaha marka waa kolley ani waa taageersanahay adiga waa wadataa ayada waa wataa dadka ku dhagan maxaa dhiileen walaa dadka ku dhagan nacabka darbiyada ha jiiraan dhihi lahay hayiga u taala war dhamaada aad kaga madcilay waxaan ku weydiinayaa qolooyinka idinka aad tihiin macnaha aan rabaa inaan okay waata halkan waxaa la yiraahdaa VIP cajiib cajiib okay hadda waa laga daawanaa miya laga daawanaa caalamka horena waa laga daawanaa isla markaasina aad u soo labistay labadina labis qurxoon horta ninkan ay qatarsanay caada waxaas dhalinyarada ninkan ka tirsan miya ninkan ay waata intaas kaftan waa su'aasheena oo nimaano su'aasheena waxay ahayd asxaabaysa la socotaan waxa jirta fanaanad faral noqoto oo reer Nairobi Nimco Habi yiraahdo waa ka warhaysan amalana ya wax badan ma maqashmo said soo aragtaan in magaca Soomaali u soo jeedo wallahi si aad u weyn waaye gabadhaas waan taageersanahay laakiin gabdhaha kale inuu soo jeedisay gabdhaha kale inuu soo jeedisay amal inuu soo jeedisay arooska amal ay sidoo soo soconahay adigana soo aragtaa in faral noqoto fanaanada waan taageeraa horta magac leh waan rabaa inay magaca iska daayay dawaal ay noqoto Afrika gorma ku horeysay heeskeeda oo maqasho heeseeda hore waan dhageysan jiray sax heestan hadda oo saad u qaraxdan 2018 ka maqlaa maleenahay si fiican adoo xagga fiirinayo 2018 ka maqashay 2018 ka maqlaa maleenahay ma sha Allah fanaanad Nairobi ka soo jeedo inay magacaas sameeyso soo aragtaa wallahi farxad weyn ah ka soo horjeedaa gabadhaas inay saa ku sii socotaa rabaa sax markaas ka sii weynaan rabaa wada taamay waan taageeraa gabadhaas waa aragtaa ka xaafadda dhan waa ku wataan adna Nimco Habi waan ku wadan anaga dhan waa wadataa waan wadaa soo jawaab hal su'aalan ku weydiinaya kale su'aashan kale waxay ku leedahay
wiigi aan soo dhaafnay arooste see u aragtaa arooskeeda wallaahi farxad weyn waaye inkastoo gabdhaha kale nagu soo jeedisay lacagta xanuun aan ku aragnaa sax balse laakiin caadi waan ku sii wadanaa weli waan wataa waan ku qaatay camal si fiican adiga see u aragtaa horta arooskeeda waan wataa inkastoo aan ka soo qayb gelin way dhaafay marka laakiin dhima la aday ubad qeyr qaan warjana xamar ma ugu tigleed waan ugu tiglaade baalka lisila ya dilisila kaarka dilisila dilisila ugu tigla oo aadileed ma ugu tigla maqlowsa okay hal midan ku weydiinaa kaleeso heeskeeda maxaa ka taqaanaa tan hada qaraxda ha hadii heesta waa ogtahay ta ogsoonow inaan ku jeclahay ha si xogaa yar ku luqay wax yar caadi waa maya adii ogsoonow inaan ku jeclahay and love you more than my life ana xubkii ya xabiibi ninku beenabi misana awjeeda caashaqayga weli qof ma u qaada inta teleefonka aa kula hadlaysay heesta ha waan taageera heesta ayda xataa iyo kan kale wiilkii magiciisa meelaha isku soo jawaabeen heesta marka hees album eeda aan fadhiyaa war dhamaada adiga ana waa sidoo kale xabada jacayl ay bartay oo gacantaasi heeskeeda wax ku shukansatay wax walba adduunyada ay kala bartaan oo aan faans garay waliya bas halkaan maxaa ka leedahay jawaabta ku jirta inay soo jawaabtaan rabaa inay ku soo jawaabtaan oo maqlaysaa